السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال سو دوادا waxaa idin la hadlaysaa waa Jamilo cabaaran kala maqnayn ogaa nolosha aan ku yaro mashquulay hadda laakiin waa soo noqday insha Allah si oo aan kala go' lahayn ayaan idin la socodsiin doonaa warbixinada waxyaabo fara badan aan ku soo dari doonaa wixii hore waa bedeli doonaa hadii alla idmo marna xogaa idin sheeg waxaan ku maqnaa marna uuraan lahaa oo xaamil ahaa teeda u yaabana marna cunugan dhalaya haddaan buu umul ku jiraaba right now marka anyway intaas haddaan taas uga gudbo waxaan rabay inaan ka hadlo ninkii baaraha gaarka ahaa oo loo xil saaray inuu soo helo Donald Trump inuu dambi galay in kaleeto ninkii asaga ahaa wuxuu soo saaray warbixin ayuu shala soo saaray warbixin la sugaayay muddo 22 bilood ah oo adi laba sano oo 2 bilood dhiman warbixintii la sugaayo oo loo xil saaray 2017kii shalay ayuu soo saaray warbixinta jumla ahaan ayuu soo saaray waxayna ka koobnayd 440 iyo jajab bog ayay ka koobnayd laakiinse warbixinta riboorka waxyaabaha ku qornaa intooda badan waxay soo baxeen mar hore ayay soo baxeen oo wax cusub maysan ahayn marka wixii ugu muhiimsanaa ayaan rabaa inaan ka taataabto waqtigayga aad u yar yahay marka si dulmar ah ayaan rabaa inaan u taabto hadii alla idmo su'aasha ugu weyn oo ninka loo xil saaray inuu soo saaro ayaa waxay ahayd dambi wax ah ma dhacay oo muxuu ahayto madaxweynaha iyo muxuu ahayto dadka oo doorashadiisa ka shaqeynayay wax dambi miyaa dhacay oo wax heshiisa miyaa dhex maray ruushka iyo Donald Trump xisbigiisa ama dadka la shaqeynayna xisbiga hadii la dhoojiyo waxay noqonayaan kuwa jamhuuriga ay noqonayaan mad waxaan ka wadaa dadka asaga la shaqeynayay taas muusan soo saarin laakiinse mid kale ayaa jirta ayadana madaxweynahana muusan dhihin 100% dambi muusan galin oo kelimada af Ingiriiska waxa lagu dhahaa exoneration in la dhaho qofkaan waxba muusan sameeynin oo dambigii laga cafiyo ama waxba aan lagu soo oogin marka Mueller wuxuu sameeyay wuxuu yiri ma dhahayno madaxweynaha dambi ma uusan galin ama muxuu ahayto uu ka madax banaan yahay oo falalkan shuqulkuma uu lahaa taas hadii aan rabno inaan sameeynana waan qeexi lahayn oo riboorka ayaan ku soo saari lahayn ayuu leeyahay taasa marka waxay wado u furaysaa in madaxweynaha hadhow markuu Donald Trump ka tago madaxnimada lagu soo oogi karo dambigan markuu noqdo qof shacab ah oo madaxnimada ka tagay marka ninkan dambi baaraha ah oo laga rabay inuu dambiga soo oogo prosecutorka waxa hor yaala caqabad aad weyn ninka la baarayo waa madaxweyne la baaro oo muxuu ahayto dambi lagu soo oogo oo maxkamad la soo istaajiyay sharciga wadanka wuxuu ka sameeyay talaabooyin aad u fara badan ayuu ka qaaday aad bay u adag tahay hadii xitaa uu madaxweynaha xitaa waraysi la muusan yeelan sababtoo ah hadii uu madaxweynaha waraysi la yeelan lahaa waxay mari lahayd wasaaradda cadaaladda waqti aad u fara badan oo horle ayay si abuuri lahayd marka Mueller wuxuu doortay in uusan talaabooyinka noocaas uusan qaadin laakiin albaabka ah in madaxweynaha dambi lagu soo oogi karo marka mustaqbalka ay tahay uu ka taga madaxnimada uu furan yahay albaabkaas wuxuu kaloo furay albaabka ah in nimanka Congress-ka ah oo aqalka hoose ay ku soo oogi karaan dambiga ama sharci dejiyaasha ay dambiga soo oogi karaan marka labadaas albaab ayuu furay marka hadda ninkan baaritaankii uu sameeyay waxyaabo aad u fara badan oo kala duwan oo hadda wax ka taaban doona ayuu soo saaray marka waxa yaala talaabada xigta oo hadda la qaadi kara ayaa waxay tahay in ay Congress-ka ama Senate-ka ay sharci dejiyaasha aqalada inay qaadaan talaabo taas see u dhici kartaa macquul miya maxaa ka soo bixi kara waayo su'aalaha la rabay in la isweydiiyo saa ogtihiin ba aqalka hoosena waxa haysta dimuqraadiga kan sarena waxa haysta jamhuuriga in madaxweynaha xilka laga qaado oo impeachment waxa la dhaho lagu sameeyo horta taas uma maleynaan inay dhici doonto shakhsiyan laakiin dawladda Donald Trump waxyaabo aad u fara badan ayaa dhacoodan filaynin marka laakiin taas siyaasad ahaan markii loo eego sababtoo ah wax marka
sheegaysid waa inaad sababta aa u leedahay waxaan way dhici karaan ma dhacayaan aad soo saartid waay marka sababta aysan impeachment u dhici karin waxay labada aqal isma raacsanaa midda kale nimankan jamhuuriga oo ninka meesha ku haayana ma rabaan inay ninkan meesha ka qaadaan ama nimankan dimuqraadiga hadday soo saaraan in ay muxuu ahayd madaxweynaha xilka rabaan inay ka qaadaan waa inay helaan ragga kale inay soo garab istaagaan way taas meesha kuma jirto man u maleynayo inay dhici doonto laakiin maanta hadallo waxaa laisla dhex marmaraya inaysan marna aysan wada hadalka ka maqnayn in laga qaadi karo madaxweynaha xilka ayadana laakiin haddii la damco ay bilaabaan albaabkaas ay furaan dimuqraadiga muxuu ahayd ma helayaan wax ay kusii wadaan waayo su-aasha uma maleynayo inay jirto awooddaas mana jirto ragga kaleeto oo xisbiga kaleeto ahna ma garab taagna oo nimankan ma rabaan inay muxuu la dagaalamaan madaxweynahooda taas meeshaas ayay ayadana ku eg tahay marka mada kaleeto oo ayadana dhaawaca ugu badan madaxweynaha gaarsiinaysa oo riboorka uu soo saaray ayaa waxay ahayd madaxweynuhu markuu ninkan loo xil saaray inuu baaro waa Jeff Sessions uu muxuu ahayd uu iska wareejiyay xilka ninkan inuu asaga hoos yimaado maadaama asaga dadka la baarayay uu ku jiray oo ninkii kaleeto loo gudbiyo asaga ka hooseeyay uu u xil saaray inuu ninkan hoos yimaado marka in la joojiyo baaritaankan madaxweynaha wuxuu geliyay shaqo aad u fara badan wayna u shaqeyn weyday oo tallaabooyin badan uu rabay lama qaadin meesha waxaa riboorka kale uu soo saaray sababta ay tallaabooyinkaasi ugu shaqeyn waayeen madaxweynaha waxa waaye dadka asaga ka hooseeya oo la shaqeynaya intooda badan ma qaadin muxuu ahayd tallaabooyinka madaxweynaha ka codsaday sababta ay u qaadi waayeen shakhsiyan ha ahaato laakiin waxyaabaha qaarkood uu codsanayay madaxweynaha waxyaabo sharciga jabinaya ayay ahaayeen marka maysan qaadin sababtoo tallaabooyinkii uu rabay madaxweynaha haddii ay qaadi lahaayeen ayagaa dambiga lagu soo oogi lahaa hadda qof shakhsiya oo dambiga lagu soo oogay ma jiro dad badan oo magacyadooda la qarqariyeyna way jiraan oo riboorka asagoo dhammaystiran babliga lama keenin oo qaybo aad u fara badan oo quseeya dad magacyadood qaybo muxuu ahayd quseeya baaritaana hadda socdo kuwa soo socon doono waxaasoo dhan macluumaadkaas waa la wada qariyay marka dadka muxuu madaxweynaha markuu dhahay waxaan hala joojiyo oo ninkan shaqadiisa hala joojiyo uu dadka amraayay dadka asaga ka hooseeyay intooda badan madaxweynaha maysan maqlin taasi waa mid kaleeto su-aasha ugu weyneyd oo ayaa waxay ahayd haddii cadaaladda xanibaad aan lagu sameynin oo obstruction of justice aan la sameynin maxaa waxaanoo beena madaxweynaha iyo muxuu ahayd aqalka cad inay ka imaadaan maxaa keenay marka su-aashaas jawaabteeda Mueller kamuusan jawaabin ilaa haddana muxuu haddii markay dadka qofka markuu been sheego ama been fara badan oo qiica la kiciyo waxbay qarinaysaa inta badan oo ka hooseeya marka waxaa su-aasha waxay tahay haddii aan wax la qarinaynin oo cadaalad darre aysan meesha ka jirin oo dambi aan la garin oo wax la qarinayo aysan jirin maxaa keenay in muxuu ahayd waxaan oo been la quruurixiyo oo hadba Twitterka lagu soo daayo ama newska laga soo daayo ama Fox News laga soo daayo anywhere laga soo daayo su-aashaas jawaabteeda ayay ahayd su-aasha ay dadka badankii sugayeen taasna maysan soo bixin wuxuu kaloo soo saaray riboorka ninkii waxaan jiray qareenka gaarka madaxweynaha Cowan oo ka hadlay muxuu ahayd Congress-ka oo la wareysanayay in asagiina testimonigiisa ama muxuu ahayd markhaati kiciisii uu soo fariistay muxuu ahayd sharci dejiyaasha hortooda taasna riboorka way ku jirtay wuxuu kaloo qodob uu cadeeyay Mueller ayaa waxay tahay in haddii cadaaladda la xanibo qof hor istaaga cadaaladda tallaabooyinka laga qaadi karo way qabtaan madaxweyne fadhiya way qaban karaan waaye marka taas muxuu ahayd maxay ka dhigan tahay in madaxweynaha lagu soo oogi karo dambiga oo muxuu ahayd meesha kamuu saarin oo inaan madaxweynaha uusan sharciga qabanin oo kale sharcigu wuu qabtaa madaxweynaha
taas oo albaabka u furaysa in hadhowtii Donald Trump markuu ka taga madaxnimada lagu soo oogi karo dambiyadan hadda lagu helay qaarkood. And what else? midda kaleeto wuxuu kaloo riboorka ka hadlay WikiLeaks nimankii sii daayay emailadii muxuu ahayd Hillary Clinton oo muxuu ahayd intay macluumaadka soo xadaan adduunyada dhan oo hadda ninkii maalin dhaweed la qabanayo oo laga soo qabanayo London safaaradda oo kale meeshii uu lahaa WikiLeaks marka iyo nimankan ma dhex maray wada shaqayn wax way soo saareen WikiLeaks emailada way soo saareen laakiin shaqo ma dhex martay taas ma cadda wali waxa muxuu ahayd haddana dad ayaa dimuqraadiga ka tirsan ayaa warqado diray Sabina ay direen waxay rabaan in riboorkii oo aan qayb la qarinin in la soo saaro okay madaxweynaha ka muusan qaadin muxuu ahayd wax talaabo ah oo ah inuu interview ka qaado ama dambi ku soo oogid ah taas muusan sameynin in uu muxuu ahayd case-ka keena ah madaxweynuhu inuu cadaaladda istaajiyay ah taasna waxaa hortaagnay caqabad weyn oo ah inuu ninka uu madaxweyne yahay oo in dambi maxkamadda soo istaajiyaa ee wax monumento aad u adag ay tahay oo muxuu ahayd challenge aad u sareeyo ay tahay intaas ugu muhiimsaneed riboorku tiro badan yahay marka la si fiican idinkugu sharixi doonaa hadii aan idmo marka waxaan rabay inaan waxya intaas idinta taabto ana think caaw hadalkii aga dhuma u maleynaa intaan ka maqnaa online ka marka taas ugu muhiimsan waxa ugu muhiimsan in muxuu ahayd uu yiri wax dambi ah oo la taaban karo lama gelin dambigu jiraa laakiin se wax oo maxkamad qof lagu keeni karo inuusan jirin in haddii xitaa uu inta uu haysto isticmaali lahaa uu ninku madaxweyne yahay madaxweyne in maxkamad la soo istaajiyo ay aad u adag tahay iyo in madaxweynuhu isku dayay in uu muxuu ahayd istaajiyo baaritaanka asaga ku socday oo dadka asaga ka hooseeya ay maqli waayeen saddexdaas qodob ugu muhiimsan meesha waxa ka soo baxay inta kale war aad u tiro badan waaye 440 page wax ka badan muxuu ahayd buugaagta qaarkood xitaa intaas ma la eka marka laan si fiican u sharixi doonaa haddii aan leedmo immigrationkii waxyaabo far badan ayaa ka soo kordhay asagana laakiin hadda waxaan isdahay inta firaaqada yar ah haysid haddii aan leedmo dadkii wax badan ka maqneed ku gali meesha maraan live soo gali doona next week haddii aan leedmo khayr far badan idin rajaynaa assalaamu calaykum